berri waa kugu imaanaysaa waxaan aniga ogaa oo aan nidaamka ugu tagay intaa soo mar dad dukumiinti rasmi ah haysta oo adinkana og tihiin oo nidaamka uu dhulkooda bixiyay oo hebel aan lahayn oo neblaayo lahayn oo dad aad u badan ah marka maxaa diidaya inay berri kugu timaado haddaa adiga ay kula tahay inay maantay dadka oo dhibka loo geystay aadan ku jirin dhibku mar hadduu faafo wuu kugu imaanaya intuusaydu ku imaanin iska moosa walaalihiinna la ilintira la shaqeeyo soo gurmada soo baxa midda kaleoo laga dhawaajiyo ah kursi baa lagu raadinayaa kursi wax lagu raadiya waxaa ugu xun dad masaakiina in la qaxiyo ayagaana sameeya marka waxaa la rabaa inaa u sheegtiin oo tirahdeen war kursi haddii la raadinayo xataa sidii ugu foosha xumeedaa ku raadinayseen sidaa kursi laguma raadiye dadkii oo dhan waa kuwaasaa balowgoodu isla yeeray nidaamka madaxda waxaa loogu talagalay dadka inay u naxariisato warka ay gabadhaas tiri waa run ooyinta yeerayday intaasoo sano ma maqlaynin nidaamku marka runtii in hadda codkiinna aad gaarsiisaan isku darsanno codka madaxda keligeed ma qaban karto mudaaharaadka haddaadnaan adinku wax ka qabanin berri waa la soo baxayaa haddii ilaa yidhaa dadka dhanna waxaan ka codsanaynaa inay soo baxaan kuwa weliba aan dhib ku haysanin ee aaminsan inay ayagu nabad qabaan inay mudaaharaadka soo horkacaanaan rabnaa kelmaddeeda u dambeeya waxaan u jeedinayaa ciidamada waa og yihiin mas-uuliyadda saaran waa inay ammaanka muwaadinka sugaan wixii ay aad dhowrkan sano ka shaqaynayeenna wax fiican ma ahayn halkaas ha ku simaan nidaamka sidiisaba 5 beri aa u dhiman markii berri la gaaro waagu noo beriyo haddii ilaa yidhaa 5taas beri kadibna qof walba waa la xisaabin doonaa xisaabta ha iska yareeyo qof walba aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhowaada berri subax 1 saaca noo ballama yaanaan la kala maqnaanin dadka qaaraa nala soo hadloo yidhi waa layda xambadayn doonaa waa carari doontaan yahuud maad tihiinaa laydinka keeni doonaa waxaasoo dhan diyaaraanuna soo dhowaada